بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داوديال idilkiin ba ku soo dhawaada wararka telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqtigan idinka imanaya stuudiyihiisa magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa 17 dhakhtar ويجو كهولجري دونا قار كميدا دخاتيرتا gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku baraarujiyay in cilmigaasi ay barteen ay uga faa'iideeyaan bulshada Soomaaliland ee iyagu u baahan kulan uu kula yeeshay hotel Xaraf ee magaalada Hargeysa kulankan ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Xuseen Maxamuud Xoog waxaana wasiirku ku dheeraday qiimaha ballaaran ee aqoonta caafimaadku ay ugu fadhido dalka iyo dadkaba waxaana wasiirku sheegay in wasaarad ahaan ay hawlgelinayaan dhaqaatiirtan isla markaasina ay ku dhiirigelinayaan in ay garab istaagaan oo ay ka hawlgalaan dhakhtarada Soomaaliland gaar ahaan dhakhtarka weyn ee Hargeysa iyo Boorama Dr. Xuseen Xoog waxa uu intaasi ku daray oo dhaqaatiirtan uu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa buuxin doona baahida caafimaad ee ka jirta gobolada iyo degmooyinka dalka wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu u rajeeyay dhaqaatiirtan qalin jabisay inay xoogooda iyo maskaxdoodaba ay isugu geeyaan sidii ay uga dhabayn lahaayeen muhiimadda caafimaad ee ay barteen waxa kale oo kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagga mudane Axmed Maxamed Madare agaasimaha cisbitaalka guud ee caasimadda Hargeysa Dr. Maxamed Axmed Carabeete Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo dhamaantoodba ka waramay dadaalka dhabar adayga ah ee ay ka muujiyeen xubnahani ku soo biiray bahweynta caafimaadka Soomaaliland muddadii ay wax soo baranayeen waxaanay dhamaantoodba ka markhaati kaceen in ay hanan doonaan oo si mugle ay u gudan doonaan waajibaadka caafimaad ee ay ka hawlgali doonaan haddii ilaahay yidhaahdo 6 bilood ee soo socda oo ay ka hawlgali doonaan cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo 6 bilood ee dambe oo ay ka hawlgali doonaan cisbitaalka magaalada Boorama Dr. Ciise Cabdi Jaamac oo isagu ah xiriiriyaha hay'adda TED oo iyadu mashruucan maalgelinaysa iyo wasaaradda caafimaadka ayaa isaguna waxa uu ka xog waramay muhiimadda dhaqaatiirtani ay u leeyihiin in ay ka hawlgalaan cisbitaalada guud ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida laga maarmaanka ay u tahay in dawlad iyo shacab la garab istaago xafiiska samafalka madaxtooyada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa deeq raashin gaarsiiyay xaafadda Gantaalaha ee ka tirsan magaalada Hargeysa deeqda raashinka oo loogu talagalay 20 qoys oo ku dhaqan xaafadda Gantaalaha ee magaalada Hargeysa ayaa munaasabada waxaa ka qayb gashay maareeyaha xafiiska samafalka madaxtooyada Marwo Aamine Maxamuud Diiriye barnaamijka deeqdan oo ay soo qabanqaabisay hay'adda Al Maktoub Foundation ayaa maareeyuhu waxa uu ku amaanay dadaalka ay ka muujisay inay kala qayb qaadato taakulaynta dadka danyarta waxaana ay ka warantay hadafka loo aasaasay xafiiska samafalka madaxtooyada iyo dadaalka ugu jiro taakulaynta dadka danyarta ee ku dhaqan guud ahaan Soomaaliland maareeyaha xafiiska samafalka madaxtooyada waxa ay ka warantay in qorshayaasha xafiisku yahay mar walba laga warhayo oo raashin lagu taakuleeyo halka ay joogaan loogu geeyo dadka danyarta ee muwaadiniinta ku sugan Soomaaliland waxaana uga mahadnaqday gudida xaafadda Gantaalaha dadaalka xooggan iyo isku duubnida ay mar walba ka geystaan wixii taakula iyo sida ay ula soo xiriiraan xafiiska samafalka madaxtooyada mas'uuliyadda hay'adda Al Maktoub Foundation ayaa iyaguna waxay sheegeen in ay taakulooyinkan wadayaan oo ay la socon doonaan qorshayaasha ku aadan xafiiska samafalka madaxtooyada ee dadka danyarta ku dhaqan Soomaaliland gudoomiyaha gudida xaafadda Gantaalaha oo isaguna munaasabadan ka hadlay ayaa uga mahadnaqay maareeyaha xafiiska samafalka madaxtooyada iyo hay'adda Al Maktoub Foundation taakulada 200 qoys ee raashinka ay soo gaarsiiyeen dhaqdhaqaaqa dekada magaalada Berbera ayaa waxa la sheegay in toddobaadii ugu dambeeyay uu kor u soo kacay sida uu warbixinta noogu soo diray wariyaha gobolkaasi nooga soo warama Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud dekada weyn ee caalamiga ah ee magaalada Berbera ayaa toddobaadkii u dambeysay dhaqdhaqaaqeedu kor u kacay kadib markii ay doonyo iyo maraakiib waaweyn ay isku soo gaareen oo sida badeecado iyo bashaarado kala duwan oo isugu jira qalab dhisme gaadiid iyo waliba waxyaabo kale oo ka mid ah waxay ganacsatada Soomaaliland kala soo degtay dalka dibadiisa waxaana hadda dekada weyn ee magaalada Berbera ku xiran maraakiib iyo doonyo kala duwan oo laga rogayo badeecado kala duwan iyo waliba sidoo kale gaadiid sugaya in ay halkaasi ay xoolo ka qaadaan oo ay geeyaan wadamada aynu xoolaha u dhoofino
taasoo ay habeenadii u dambaysana dekadda caalamiga ah ee magaalada berbera ay ka dhoofeen xoolo aad u tiro badan oo laga leeyahay dalka jamhuuriyadda somalilan korukaca dhaqdhaqaaqa dekadda weyn ee magaalada berbera ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in ay buuxsamaan guud ahaanba kaalalka lagu xidho maraakiibta iyo duunyuhu marka ay dekadda ku soo xidhaan sidoo kalena ay dekadda barxaddeeda ay taagan yihiin amaba haabada ay maraakiibta ku soo xidhaan ee loo aqaano angarejka maraakiib waaweyn oo lagu talagalay in ay dekadda ay ku soo xidhaan kaasoo ay ka mid yihiin oo aan ilaa hadda aanay u bannaanaanin meelo lagu xidho sida markabka weyn ee koontiinarada qaada ee lagu magacaabo biil waxaa jira sidoo kale maraakiib waaweyn oo iyaguna xoolo qaadayaal ah oo sugaya sidii ay halkaasi uga heli lahaayeen inay kaal ay ku xidhaan ay bannaanaato waxaa si weyn u mashquula guud ahaanba shaqaalaha dekadda weyn ee magaalada berbera ka howlgala iyagoo ku howlan sidii ay halkaasi badeecadaha kala duwan ee ay sidaan maraakiibta iyo dunyaha dekadda ku taagan ay ugu soo rogi lahaayeen kuwo kalena ay halkaasi u saari lahaayeen iyaguna dhankooda geelayaasha iyo weliba ururada xamaalinta ee ka howlgala marsida dekadda weyn ee berbera ayaa ka warramay duruufaha kala duwan ee ku xeeran marka haddaanu nahay ururka dhallinyarada ee faracadda ee shaqaysata waxaanu leenahay uun xagga shaqooyinka inuu nala socdaan maareeyayaasha labada maareeyaba camal la'aantayada ay hoos u eegaan geedhkana ayna eegaan xagga geedhka iyo kadinka soo gelidda dabeedna aanu nahay urur ilaaliya dekadda gudaheeda iyo kambalkeeda iyo hareeraheeda wixii waxadaya wixii anigoo magacayga leeyahay Mustafa Maxamed Xaashi kuna magac dheerna qaare joogana gobolka Saaxil waxaan ku gabagabeynayaa anigu arkankayga dawladdiina cadaaladda hoos eegto dadka waxa deeqda cadaalad adduunka deeqo in cadaaladda nala soo saaro ma doonaa anagu waxay sidoo kalena halkaasi aad ku arkaysay dekadda marka aad saaka aad dhex marto iyadoo ay koontiinaradu ay si weyn ay isu dultuulan yihiin dekadda barxadaheeda waaweyn oo aanad helaynin meelo la maro waxaana guud ahaanba la odhan karaa dhaqdhaqaaqa guud ee dhinaca iyo doonyaha soo galaya dekadda ayaa kor u kacay toddobaadadan u dambeeyey iyadoo muddo dheerba dekaddu aanay maraakiib aad u tiro badan aanay ku soo xidhanin dhinaca kalena xarunta loogu talagalay agoomaha ee maalmo dhowd la dhagax dhigay dhismaheeda xaruntan gobolka saaxil ee berbera ayaa dirtimo la gabagabiyey xaruntaasi geedhkeedii guud iyadoo ay maamulka xaruntaasi gacanta ku hayo oo uu ka mid ahaa Mustafa Cali Cumar Kujoog oo isaguna sheegay in ay goobtan ay hadda gabagaba tahay loona baahan yahay sidii looga qayb qaadan lahaa sidii loo dhammaystiri lahaa goobaha loo baahan yahay in carruurta agoomaha ee aan iyagu awoodin in halkaasi ay waalidkoodu wax baraan wax lagu baro laguna xanaaneeyo goobtaasi aanay hore u lahaan jirin xarunta gobolka saaxil ee berbera balse goob cusub ayaa loo baahan yahay sidii looga wada qayb qaadan lahaa sidii ay goobtaasi u shaqayn lahayd Mustafa Cali Cumar oo ka hadlaya arrimahaasina hadaladiisii waxaa ka mid ahaa sida tan ballaan uga soo jeedinayaa hablaha reer saaxil ee Birmingham oo runtii ku daaqay deerkan hadda aynu joogno 18 Ramadaan aan dhagax dhignay imankana dhamaaday waxaanu leenahay waxa uu haray kaliya albaabkii la geliyo dhulka inoo yaala iyo nooradii إن شاء الله تعالى وحن دوننا إن لا قيبتين لبعضنا أي كسر دران خير الله سيئة قولك مركا هردة يا قولك وحبر الشدة يالك عنده لو كريني هل كسر نقول تلا قال لي بقول قفوا وماها ساحلة إن أنو كحنا نحن هدي لا كدقو وحبر الشهاني عنتهم با وحن ذلنا إن جزاكم الله خير رمضان تبع عمل كيني لا كل مي رمضان تينا ورد ماضي waxaana loo baahan yahay sidii looga wada qayb qaadan lahaa arrinkaasi mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan berbera qaar ka mid ah odayaasha magaalada Hargeysa ayaa waxa ay taageereen baaqi xukuumadda dalkan jamhuuriyadda Somaliland ee ku aadanaa in gargaar loo geysto dadka abaaraha iyo macaluusha ay ku hayso dalkaynu jaarkanahay ee Soomaaliya xubno ka tirsan uqaasha magaalada Hargeysa oo shir jiraayad ku qabtay hotel dalxiis ee magaalada Hargeysa ayaa ugu horeyn waxa ay kaga uqaashu si buuxda u taageereen dareenka damqashada leh ee xukuumadda Somaliland ee uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ugu gurmanayso shacabka ay saameysay macaluusha ba'an ee ka dhacday deegaanadaasi Soomaaliya waxay sheegeen in ay tahay waajib saaran shacabka Somaliland in ay ka qayb qaataan gurmadkaasi oo si joogto ah uga wada qayb qaadanayaan guud ahaan beesha caalamku waxa kale oo ay ka dhawaajiyeen sida ay uga xun yihiin in la dhaleeceeyo isla markaasina la siyaasadeeyo qadiyadna la geliyo arrintaasi gurmadka loo fidinayo dadka tabaalaysan uqaashaasi waxa kale oo ay sheegeen in Somaliland iyo shacabkeedu ay ku jiraan xilligan waqti barwaaqo isla markaasina ay waajib ku tahay in ay u gurmadaan walaalahooda Soomaaliya ee ay isu biirsadeen colaadaha iyo abaaraha aadka u darani
waxaana ilaahay uga baryeen inuu dadkaasi ka dulqaado dhibaatadaasi haysata oqaasha baaqan soo saartay waxay kala ahaayeen jiif caaqil cabdiweli jaamac cabdi jiif caaqil cabdi faarax yuusuf jiif caaqil axmed cismaan faarax jiif caaqil cabdirasaaq maxamed askar iyo jiif caaqil baashe cismaan yuusuf halka daawadayaal warkaasi kala socotaan waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland stuudiyihiisa koobaad ee magaalada Hargeysa ciidamada mucaaridka wadanka Liibiya ayaa waxay sheegeen inay isku diyaarinayaan in ay si buuxda gacanta ay ugu dhigaan oo ay ula wareegaan magaalada bin Waliid oo ay ku badan yihiin taageerayaasha Muammar al-Gaddafi ogaga mucaaridka wadanka Liibiya ayaa sheegay inay ku jihaysan yihiin dhinaca koonfurta iyo deegaanka lagu magacaabo bin Waliid halkaas oo deegaan uu Gaddafi taageero xoog leh uu ka haysto qabaylka deegaab waxaana haatan labada dhinacba ay isku diyaarinayaan dagaalka soo socda ee loo gelayo gacan ku haynta magaalada la yiraahdo Sirta xogaga mucaaridka ayaa doonaya in ay joojiyaan dhaqdhaqaaqa ay wadaan xogaga u daacada Colonel Muammar al-Gaddafi geesta kalena golaha kumeel gaarka ee Liibiya ayaa sheegay in marka hore ay doonayaan in ay wada hadal ay la galaan odayaasha deegaanka Bani Waliid dagaalyahanada ayaa haatan u hub urursanaya sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen deegaankaasi oo ay ku badan yihiin taageerayaasha Colonel Muammar al-Gaddafi wadanka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu ku rajo yahay in dib uu soo noqlaado xiriirkii u dhaxeeyay wadamada Turkiga iyo Israa'iil kadib markii wadanka Turkigu ay dalkooda ka cayriyeen safiirkii Israa'iil u fadhiyay dalkaasi xiisada u dhaxaysa Turkiga iyo Israa'iil ayaa sare u kacday kadib markii ay Turkigu dalkooda ka cayriyeen safiirkii Israa'iil ka fadhiyay isla markaana ay joojiyeen gabi ahaanba iskaashigii iyo xiriirkii dhinaca military ee labada dhinac ka dhaxan jiray arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxday warbixin ay soo diyaariyeen guddida ay qaramada midoobay u xil saartay inay soo baadho weerarkii ay ciidamada gaarka ah ee Israa'iil ay ku qaadeen doon shixnad gargaar u siday dhulka marinka Gaza bishii May ee kal hore halkaas oo ay ku dhinteen 9 ruux oo kamid ahaa dadkii doontaasi la socday oo Turki ahaa warbixintaasi ay soo diyaarisay guddidaasi ayaa lagu sheegay in Israa'iil u adeegsatay awood xad dhaaf ah saahata ay xiriirada dhulka Gaza ahayd mid sharci ah Israa'iil ayaa diidan inay wax cudurdaar ah ka bixiso weerarkaasi ay ku dhinteen 9 ruux ee Turkiga ahaa waana tan haatan keentay in Turkigu ay eryaan safiirkii Israa'iil u joogi jiray wadankaasi Turkiga akhyaarta qiimaha qaayaha iyo sharafta managa mudan ee sida tooska noo daawanaysay intaasi waxa ku dhamaaday wararkayga telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland warkaygan iyo wixii warar ee soo kordhaba waxa daawan doontaan haddii Allah awood leh ogolaado wararkayga dambe ee soo socda dhinacayga intaanu ku kulmi doono warkan oo kale meel kasta oo dunida daafaheeda kala socotaan warkan telefishinka qaranka waxaan idinku dhaafayaa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh